السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دوادا برنامج كان وإنه ما أنت كورة يسنطونه أقول يهن سعيد عبد حسن وكوما قعدير أقول يهن عرمدو وهرين أقول يهن كسر دوا برنامج كان حدي أينو كوبلونا برنامج كان الوحود دارين هاي ضد اللي يرضى رجعوا بدني أي كان معلمه جدا بيه فيسبوك سيدي أينو لود السعوني تاسو كوسابسن إن حبلها إن waddanka Itoobiya gaar ahaan Tigray ama qoomiyadda Tigray oo haatan gobolkooda uu ka socdo dagaal ay daneynayaan wiilasha Soomaaliyeed inay guursadaan taasoo ay filayaan hablahaasi aad u qurux badan yihiin markaana ay filayaan in hablahaasi u soo qaxaan dalka sidaasina ay kaga faa'iideystaan halka gabdhihiina ay arinta aad uga soo horjeesteen oo aad arkayso dawladda la isdhaafsanayo bal maxaa keenay baad isleedahay aqoon in xilligan أي أرنتها ضوضاس دحمة طردل يرضى الصوماليين. بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها يا عبد الرحمن وأنا كفر حسن أمان تستوزي إن شو أرنتها أنا وحكينا ما نسلاها هاي أودليي مركي دجالات المدعيين أي أنت بدن تكريجا عسكرت واحد بدن هوين بدن بكوشة أو تكريجا قبل بدن ومركز سيف على لبسين وماركتي للدياريي ومركز غار لو الدياريي صور ayaad moodaa in dhalinyaro badan ay arkeen marka kaftan badan ayaa kamish ka bilowday oo ku saabsan rag badan inay u hanqaltaagayaan gabdhihii Tigreega ahaa ay arkeen gabdhihii Soomaaliyeedna ay ka caroodeen arintaas oo iyaguna hadda ay leeyihiin anaguna waxaan doonanaa rag Tigreeg ah oo iyaguna ay sawirkooda maar soo gelinayaan marka arintan waxa keenay baan isleeyahay horta sheekada kaftan ku bilaabatay bay ahayd ma garanayo rag Soomaaliyeed inay si arintaasi dhab uga tahay hadday si jirto kuwa ay dhabta ka tahay waxaan isleeyahay horta gabdhaha hadee geeska Afrika oo dhan way amaanan yihiin oo maaragtay gabdho wax ka sheegi mayno nooc kasta ahaadaan laakiin gabdhaha Soomaaliyeed si gaar ah ayay u amaanan yihiin maxaa yeelay way ka soocan yihiin kuwa maaragtay geeska Afrika jooga waana naqaanaa oo waa gabdhaha yagii marka anigu waxaan isleeyahay kuwa amaanaya gabdhaha Tigreega ah malaha waa kuwii Chinese ka waayay gabdhaha Soomaaliyeed oo malaacil qab ayaa keenay baa laga yaabaa laakiin waxaan leenahay gabar Soomaaliyeed wax loo dhigaa ma jirto waa islaam waa gabar muslimada marka xigtana dhaqanka Soomaaliyeed ayaa wax kasta ka sareeya marka xigtana abwaaninta hore Soomaaliyeed ayaa cadeeyay gabadha Soomaaliyeed quruxdeeda adduunka kale ayaa ka marxaatay oo maanta Afrika hadda istiraahid marka la qiimeynayo gabdhaha quruxdooda kaalinta koobaad waxa ku jira gabdhaha Soomaaliyeed marka shisheeyihii baa ka marxaatay furay gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin gabdhaha ugu quruxda badan Afrika iyo adduunka ba anu saan qabo marka ninka maanta ka hadlaya arintaas waxaan isleeyahay waa nin kaftamaya ama dhinaca kale maaragtay wax kale la duuleen ayaan isleeyahay ma laga yaabaa baad soo dhan kartaa doodan xoog gale ee u dhaxaysa dhalinyarada gaar ahaan intooda isticmaasha Facebooka in qaarkood ay kaga dhabeeyaan oo halka ay ku guursadaan hablaha Tigreega horta Cabdiraxmaan oo gabdhaha Soomaaliyeed ma cusba iyaga min ajnabi guursado Turkiga qabta gabdhaha Soomaaliyeed Afrikaan kala qaba waxa yar ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha ajnabiga ah qaba yar labada dhinac ma garatay marka anigu waxaan isleeyahay gabdhuhu waa ka dhabayn karaan laakiin raggu kama dhabayn karaan baan isleeyahay sababtoo ah ragga Tigreega gabdhaheena Soomaaliyeed ma heli karaan oo wax kasta wada dhigi karaan laakiin ragga Soomaaliyeed ismalihi gabdhaha Tigreega ah way gursan doonaan sababtuna waxay tahay uma diyaarsana ayaan isleeyahay sababtoo gabdhaha Soomaaliyeed ka dulqaad badan ayay bahan kari laayiin iska daa gabar shisheeye ah oo aan u dulqaadanayn ragga Soomaaliyeed rag dhib badan gabdhaha waxa lagu dayaca caruurta waxa lagu dayaca biilka waxa soo dhan hatta qixii qoysaska waxa la baxsaday gabdhaha Soomaaliyeed baa la baxsaday raggu inta badan door muhiim ah door weyn kuma lahayn Siciid maxay diinteenu ka qabtaa guurka gabar aan muslim ahayn waa sababtaan ugu bilaabay hadalkayga oo gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho muslimiin ah Ilaahay ha barakeeyo diinta islaamka ku dhashay ku koray lagu dhaqmay oo ku dhaqmay weeyaan waxaad moodaa marka saan hore u sheegayba sheekadu kaftan bay ku bilaabatay iyadoo aan waxyaalo badan la eegin anigu hadda waxaan isleeyahay kaftanka bay ku eeg tahay waxyaalaha in xadidaya ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay muslimiin yihiin inaguna muslimiin nahay diintuna ninka ragga ay u ogoshahay gabar muslimada inuu guursado marka anigu waxaan isleeyahay marna fursad halkaasi kama banaana waa laga yaabaa hadii gabadha Tigreega ay muslim tahay laakiin gabadhii Soomaaliyeed iyo gabadha Tigreega ah baabade wax badan isdheer wax la isba bardhigi karo ma ayaan qabaanu dhinaca kale hadii aynu ku noqono dhalinyaradu inta badan waxay sheegeen in hablaha Tigreega ay aad u qurux badan yihiin
bal maxaad nooga sheegi kartaa suugaantu quruxda hablaha Soomaaliyeed ee ay suugaan ahaan lagu tilmaamay Cabdiraxmaan horta suugaanta Soomaalidu boqolkiiba 70 baa la oran karaa gabdhaha Soomaaliyeed baa lagu amaanay waliba heesihii Soomaalida ee xilliga hore la tiriyay waxa lagu amaanayay gabdhaha Soomaaliyeed amaanta la siiyana wali waan isleeyahay looma marin gabdhaha kale Afrika ama dunida kaleba waxayna ku tusinaysaa qiimaha gabadha Soomaaliyeed leedahay waan oran karo suugaanta loo tiriyay way goosteen oo way u qalmeen waxa kamid ah heesta caanka ah ee uu qaado fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal oo la oran karo waa hees amaanta gabdhuhu ay ku dhantahay dhinac kasta oo maaragtay abwaankaas ugu fareereystay fanaankuna codkiisa quruxda badan runtii uu ku qaaday for example wuxuu leeyahay ilkaheeda dhuuxa ah indhaheeda dhayda ah dhabankeeda curubta ah suuniyaha bildhalatiyo sida qaansan lagu dhigay timaheeda dhuxusha ah barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydho ay ku dheeshiyo midabkeeda dhinka ah waa dhamays haween oo dhexyarideeda madagta ah luqunteeda dhabiga ah dhaayihii jaleeca dhibaatada hilmaamay marka waxaana tusinaysaa wuxuu tilmaamayaa qaab dhismeedka gabadha Soomaaliyeed oo aan isleeyahay midabka noocaas iyo quruxdaas gabadha Soomaaliyeed lagu tilmaamay gabdhaha kale ee maanta geeyan ku nool way ku yartay abwaanka Adraawi ayaa gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu tilmaamay dabcigooda kaas quruxdu ka tilmaamay dabcigoodu tilmaamay wuxuu yiri hablo weerar gali kara hablo geesi dili kara gobonimana hanan kara hablo talada gooyn kara garta madal ka naqi kara garashana iskaga mid ah quruxdana ka wada goba geesteena mooyee geeyi kale ma joogan buu yiri gabadha Soomaaliyeed sida ninkii u dagaalamay xawataako kale maaragtay oo halkankii Soomaalida ka qayb qaadatay marka ragga Soomaaliyeed xurnimadii dagaalamayeen cidda biyaha iyo caanaha iyo dhiirigelinta la daba joogtay dumarka Soomaaliyeed bay ahayn haddaan ku noqono islaaman Hadraawi heesti balad weyn oo kale marka gabadha Soomaaliyeed amaalayay oo balad weyn ka hadlayay gabadha uu ku arkay waa tuulaha dhanka bari magaalada soo boqorad joogto bilicda haweenkiyo bilii loo dhameeyo biyada hab la moodo timo boqonta joogo baal gori la moodo baalkana casaanka bidix mid isgaareen burcad lagu tindhiyo bar ku seexanayso huwanaysa baal oo barkanaysa qaaro igu beertay lahasha u bursay lamaan barwatula gabadha noocaas maanta tikreeg inay ku jirto u malayn maayo jacaylka gabdhaha Soomaalida loo qaadana abwaano badan baa suugaantooda ku laray qaar baa u waashay cilmi boodhir baa u dhintay bal taariikhda Itoobiya laga soo helo nin gabadh jacayl maaragtay tikreeg laga soo helo nama maqale laga soo helo bariyihii u dambeeyay sideedaba waxa jiray in dhalinyarada u badan wiilashu ay ka cabanayeen qarashka meherka iyo arooska oo aad u badan isla markaasina marka ka dambaysa sii badanaya ma laga yaabaa dooda xilligan taagan ee hablahaas tikreeg ah ee social media dhex maraysa in ay daaran tahay in habluhu ay ka yareeyaan qarashka wiilasha oo markaasi aanay wiilashu dhinacaasi u jeedin laakiin ay dareensiinayaan ma laga yaabaa taas iyada Siciid laba arrimood baa noqon kartaa oo gabdhaha Soomaaliyeed rag badan baa la culubay marka ragga ajnabi ay guursanayeen ragga ajnabiga oo muslimiin badan waliba ay guursadeen rag badan baa marka col ahaa oo lahaa maxay gabdhuhu saa u sameynayaan maxay ajnabiga guursanayaan kuwii hadda ayaa waxay yiraahdeen ilaa gabdha degan oo wadan lama guursan karaane kuwan islahayn oo qaxooti oo soo qaxayaan oo qiimaha waa jabayaan waa laga yaabaa taasiir keento laakiin soo waxa leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed wax la dhaafsan karaa ma jiraan waan ku amaanaynaa karaamadooda sharaftooda iyo cisigooda waxaan leenahay jira oo jooga ilaahay idinkii waligeed ugu dambeyn aqoonyahan maxay noqonaysaa fariinta aad dhalinyaradaas iyo dadka isticmaalaya baraha bulshada ee doodan maalmihii u dambeeyay dhex mareysay aad u diraysaa fariinteedu waxa weeye horta gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed waligood dagaal ka dhaxeeyay xifaaltanku way iska jiray xifaaltankuna hadba dhinac buu dhacaa mar maaragtay qurux buu noqdaa mar dabci buu noqdaa marba wax buu noqdaa marka haddeerna waxa bulshada baraha bulshada ka socda waa un xifaaltankii dhalinyaradii istoonaysay oo hadda door muhiim ah hatta dhalinyaradii hadda waxa ciriiriyay odayaashii waaweynaa baa ciriiriyay gabdhihii yaryara guranaya marka doob badan oo xanaaqsan oo mala qarashka iyo jeebka la cilan ayaa jira kuwaas ayaa maaragtay waxay gabdhihii waa hadal dad badan oo laha maaragtay noo dabca ah marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed ay u gacan qaban jirteen u gacan qabtaa hadii la yiraahdo daawadayalkaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Siciid Cabdi Xasan oo ku magac dheer aqoonyahan Cirmadow inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh